maalmihii ugu dambeeyay waxaa cirka isku shiishareerayay khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha dowladda Hirshabelle iyo waliba gudoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Hagar Dabageed banaanbaxyo khasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dad badan ayaa ka hadlay sidoo kale xisbiga Sinaanta Midnimada Nabadda Soomaaliyeed oo ka jira gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu arikaasi ka soo saaray war-saxaafadeed sidan ayuu u qornaa 14 bisha 6 sanada 2019 ku taariikhaysan war-saxaafadeed xisbiga Sinaanta Midnimada Soomaaliyeed waxa uu walaac ka muujinayaa xaaladda kacsan ee ka jirta Hiiraan gaar ahaan Beledweyne. Waxa uu tacsi u dirayaa dhammaan ummadda reer Hirshabelle gaar ahaan ciidamada booliska oo uu ka geeriyooday Allah u naxariistay taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan. xisbiga waxa uu walaac ka muujinayaa banaanbaxyadii ka jiray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana uu ugu baaqayaa dhinacyada ishaya inay fiiriyaan danta ummadda iyo wadajirka iyo midnimada ay wax walba ka horeysiiyaan. xisbiga waxa uu ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan inay si hoose u dhaqaan xaaladaha isdiidan ee ka taagan gobolka si loo ilaaliyo wadajirka ummadda. xisbiga waxa uu ugu baaqayaa madaxda Hirshabelle inay mas'uuliyad gaar ah iska saaraan xaaladda Hirshabelle tan Hiiraan iyo waliba xaaladda kacsan ee hadda ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wabillahi tawfiiq.